taariikhda calanka Soomaaliya kama bilaabato xilligii ay Soomaaliya ku jirtay maxkamiyadda 60kii ka hor ee waxa jiray isku dayo badan oo ay sameeyeen Israel xitaa ka hor inta Soomaaliya loo dhiibin Talyaaniga laakiin markii Talyaaniga uu la wareegay maamulka Soomaaliya 1950kii gumeystaha Ingiriiska waxa uu ku dhaqaaqay tallaabooyin waalli ah Ingiriiska waxa uu qaatay waqooyiga Soomaaliya NFD waxa uu siiyay gumeystaha Kenya xeebta ama Djibouti waxa xoogay Faransiiska Ingiriiska sidoo kale Itoobiya waxa uu siiyay dhulka Soomaali galbeed ama u naqaan Ogaadeniya waxa arrin culus noqotay in dhulkaas iyo dadka degan la isku keeno Israel markii ay aragtay Soomaali weyn faraha ka sii baxayso waxa ay ku fikirtay in la sameeyo calan qiimo badan oo Soomaali weyn ka turjumaya waliba ka hor inta aan xurriyadda la gaarin 1960ka farshaxano badan ayaa la sameeyay dad badan ayaa dadaalay tartan ayaa loo galay sidii calan Soomaaliyeed loo sameyn lahaa laakiin ugu dambeyntii waxa la qaatay farshaxankii iyo hindisihii uu lahaa Allahu naxariistay Maxamed Cawaale Liibaan oo kamid ahaa leegada iyo midowga shaqaalaha ganacsatada Maxamed Cawaale Liibaan calanka waxa uu ku sameeyay wax ka yar 24 saac laakiin waxa uu noqday calanka ummadda Soomaaliyeed ka turjuma isagoo soo bandhigay xidigta cad ee shanta gees leh waxa ay ka turjumaysaa shanta qaybood ee dhulka Soomaalidu degto ka kooban yahay midabka buluuga khafiifka waxa uu ka turjumayaa cirka iyo badda dhulka Soomaalida oo mar walba midabkooda buluug yahay calanka buluuga ah ee xidigta ka turjumaysa Soomaali weyn dhaxda uga xardhan tahay waxa la sameeyay 12 Oktoobar 1954 maalintaas wixii ka dambeeyay Soomaalida waxa ka turjumayay calankaas oo ahaa astaan ka hadlayay Soomaali weyn iyo midnimo qaran dhinaca kale heesta calanka waxa ay leedahay taariikh gaar ah heestan waxa miraheeda lahaa Abwaan Xuseen Aw Faarax Dubad waxa laxanka lahaa Abdullaahi Maxamed Xirsi Qarshe abwaanka alfahesta ayaa ka sheekeeyay in heestaasi ay ku jirtay riwaayadii ay isku barteen Xuseen Aw Faarax iyo Abwaan Qarshe oo waqooyi ka yimid iyo fanaaniinta reer Muqdisho heesta waxa ku jirtay riwaayad lagu eegayay fanka labada abwaan Xuseen Aw Faarax waxa uu sheegay in riwaayadda marka ay dhaxda marayso oo ay qaadeen heesaha calanka in isaga iyo Qarshe la siiyay dibloma lagu abaalmarinayo labadaas abwaan diblomadaasi lama bixin ka hor xilligii ama kadib waxa ay sidoo kale isla riwaayadaasi ka dhigeen Djibouti xilliga riwaayadaasi Muqdisho lagu dhigayay waxa ay ahayd 1956 laba sano ayuu jiray calanka Soomaaliya hees sidan u qiimo badan cid u qaadatay malahan xilligaas ka hor miraha heesta waxa kamid ahaa qolobaa calankeedu duwa cayno ugu shantii Juun 2001 ayuu Maxamed Cawaale Liibaan ahaa ninkii sameeyay calanka Soomaaliya ku geeriyooday magaalada Toronto ee dalka Canada Soomaalida maanta waxaan hubaa in Soomaali badan dhiiga iyo damiirkoodu u dhaqaaqay maqalka heesta laakiin marka runta la isku sheego heesta calanka maanta ma lahan dhadhankii hore dalka waxa loo kala qaybiyay gobollo qabiilo dawlad goboleedyo ma jiro laba isku fikrad ah ma jirto laba ka sheekaysata Soomaali weyn midnimo iyo mustaqbalka dalka dadka iyo diinta haddaba daawadayaal maanta waxaan ka hadlaynay taariikhda calanka halkan waa Hanwadaag Media magacaygu waa Yuusuf Cabdullaahi Cali